مسبق لنا عرورتا همبليو مدن رئيس وزراء waad mahadsan tahay wasiirada sharafta leh xildhibaanada sharafta leh oo halkan maanta igu heliyay maalinta caruurta howlwadeennada mas'uuliyadda wasaaradda martida sharafta kala duwan hooyooyin gabdhaha ardayda caruurta warbaahinta waxaan igu salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib ugu horeen ii ogolaada inaan idinku soo dhaweeyo munaasabadda qiimaha leh oo aadan maalinta caruurta adduunka isla markaana ay Soomaaliya u dabaaldegayso 10kii sano guurada oo ka soo wareegatay oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku saxiixay qalinkan ku duugay waxaana rabaa qof naga mudan inaan halkaan ku xusno suwarkana ka muuqdo wasiiradii hore Khadiija Maxamed Diiriye ilaa uu naxariisto ee maanta ayada soo gaarsiisay guusha maanta taagana 10 sano kadib waa waxay ka soo shaqeysay ee qalinkeeda ku duugtay waxaan leenahay ilaaha uu naxariisto inaan u soo duceysin insha Allah dhaqan gelinta heshiisyada caalamiga waxa waxyaalaha ka shaqeeya ra'iisul wasaare waxa ka mid ah heshiisyo badan oo dhaqanka gelinta heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta qaramada midoobay ansixinta axdiga xuquuqda caruurta Afrika diyaarinta hindi sharciyeedka xuquuqda caruurta hindi sharciyeedka joojinta naafeynta xubinta gabdhaha sharciga joojinta kufsiga iyo anshax xumada diyaarinta hindi sharciyeedka cadaaladda da'da yar diyaarinta siyaasadda hubinta da'da yar intaas ka badan wax ka badan ka sameeyna jirta ra'iisul wasaare waqtiga maadaama uu gaaban yahay guulahaas oo guulo kale ka badan ayaa 10kii sano la soo dhaafay qabsoomay dawladda federaalka Soomaaliya waxa dhinaca socda dadaalo ah oo wadada ku soo jiro oo sii wadno oo kamid ah mashaariic inaan furnay xarunta caruurta oo nambarka Maama Zahro nagu soo wareejisay 10 sano ay ka shaqeynaysay waxa la maadsantahay Maama Zahra hay-adeeda ku soo shaqeynaysay nambarka 116 oo shalay xiriga ka jarnay caruurta oo tacadiyada lagu sameeynayo iyo dhibaatada haysto maanta dawladda si rasmi ah ay ugu dhawaaqayso in caruur walbo taxadiga iyo dhibaatada ka soo gaaray inay halkaas insha Allah biidnillah shaqadooda lagu qabto 1 December-kana waxa lagu dari doonaa gabdhaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed tacadiga galo mudan ra'iisul wasaare waxa hortiina ka ballan qaadaya inaad sii wadi doono dadaalkeena ku aadan horumarinta caruurta Soomaaliyeed ayadoo ay naga go'an tahay inaad xaqiijino dhismaha iyo soo saarka jiilka Soomaaliya cusub hogaamiyaha soo socda insha Allah biidnillah kariim waad mahadsantiin waxa codsanaa waxay tahay dhammaan martida sharafta leh caruurta ismaqalno waxaan rabaa مي مقشين waxaan rabaa halkan ila soo dhaweysiin ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Bare